isoo noqdo wanaagsan asxaabteena jiilka maanta saan horeyba kugu soo sheegay bilowgii muuqaalkan maanta waxaan rabaa amaba aan doonayaa inaan kula wadaago saddex dhacdo oo markii kugu horeysay aad maqlayso aadna aad ula yaabi doonto bal yaan war badan kugu sii daalinay dhacdo koowaad haddii aan kugu soo qabto sida caadiga ah bini'aadamka waa mid si maalinlaha markaas u areebaha amaba u faartigareeya fartin af Soomaali waa sida tan maxaa la dhuse balse ma aaminaysa haddii aan ku dhaho bahashaas aynu wada necebnahay markii agteena ay ka dhawaaqdana aan gacanta sanka kula orodno bini'aadam maanta adduunka ku nool ayaa lacag ka sameeya bal dhacdeen koobaad waa dhacdo noocaas oo kale ah And I love farting. It feels amazing. And it's funny. It's so funny. balaayo haweeneydan magaceedu sida tan yahay kana soo jeeda dalweynaha Mareykanka waa haweeney runtii aad kaaga yaabi doonta oo runtii bahasha aariyada ah aad uga macaashtay sida bini'aadamka caadiga u ah si maalinlaha markaas ayaan hawada ugu sii deena bahashan anagoo wax lacag aan ku qaadanaynin inkastoo calooshayna ay caafimaad u tahay bal haweeneydan bahda YouTube-leeda sidoo kale kamida waa haweeney markaas dadka adduunka oo dhan ka duwan oo bahashii aariyada ahayd ay aad uga macaashtaa iyadoo in ka badan 25,000 oo dollar markaas ka samaysay bahashaas aariyada ah sida ay waraysi ay bixinaysa ku sheegtaba waxayba leedahay shaqadan waa shaqadeyda oo muddo 3 sano ka badan iyadoo markaasba leh in bahashan aariyada ay tahay meesha ay maanta ku nooshahay ama oo dakhliga uu ka soo galo taas aniga aan aad ku leeyahay waxay tahay waxayba leedahay dad macaamiil oo markaas ka soo dalbada in yacni u soo dirto iyadoo markaas bahashii aariyada ahayd kaamirada horteeda ku sii deynaysa Tons of people love to see me fart every day. Tons of people give me money to fart. halkii video ay markaas aariyaha markaas amaba halkii jeerba ay aariy bixiso waxay hawshaas kugu qabanaysaa lacag gaaraysa $175 maalinteedii ugu lacagta badneed intay hawshan ku guda jirta waxay leedahay in ka badan 4,000 oo dollar ayaan hal maalin ama one day ku qabtay bal anaguna maalin walba waxaan sameynaa inaan hawadaas urino anagoo wax lacag nagu la siinaynin inkastoo caafimaad ay u tahay calooshaada bal dhacdo koobaad aan xagaas kaga gudbay dhacdo labaad aan ku soo qabto oo iyadana markaas mid ku tusinaysa amaba ku tusi doonta xaasinimada ninkan heerka ay gaartay ninkan sawirkiisa idin muuqdo magaciisana uu ku hoos qoran yahay waa nin markaas ka soo jeeda ama u dhashay dalkaas Canada waa nin Canadian waa nin ganacsato ah waa nin sidoo kale siyaasi ah balse doqonnimada ama xaasinimada heerka ay ka gaartay haddii aad maqasho dhacdadiisa waxaad dhigi doontaa markaas maba jiro markaas qof ka xaasisan ninkan dhacdo uu sameeyay haddii aan gunta kaaga soo bilaabo ninkan 2018kii wuxuu ahaa mid kamid markaas dadkii u tartamayay kursiga inuu noqdo markaas maayirka magaalada Ottawa ee dalkaas Canada balse nasiib darro ma uusan noqonin duqa magaaladaas intaas kadib sida ay xaaskiisa sheegtay ninkii dabeecadii dhan uu bedeshay oo ninkii wuxuu noqday markaas nin aan la aqoonin oo wuxuu aad uga carooday markaas in laga guuleystay xanaaqiisii faraha badnaa darteed isaga iyo xaaskiisii way kala tageen oo markaas way isfureen furinkii ay kala tageen kadib sida caadi ah markaas wadamada reer galbeedka waxaa dhaqan u ah markay laba qof ay kala tagaan maalkii markaas uu ninkaas lahaa in inta ugu badan markaas xaaska ay qaadato amaba markaas ay dhaxda kala dhigtaan qaar ninka uu qaato qaarna naagta ay qaadato ninkaana wuxuu markaas nin milyaneer oo markaas lacag haysta intaas kadib waxay ka dalbatay in ay siiso markaas lacagtii ay xaq u lahayd balse ninkan aad buu ugu madax adeegay inuusan lacagtaas siinin naagtaas bedelkeeda wuxuu yiri inta aan lacagtan naagtaas sii lahaa waxa ay dhaanta markaas anigoo guba oo wuxuu gubay in ka badan $1 milyan oo dollar oo lacagta Canadian-ka ah xaasinimada heerka ka gaartay darteed intaas kadib naagtii waxay go'aansatay markaas inay ninkan maxkamad saarto si ay xaqeedii uga soo dhacsato markii maxkamadii la soo istaajiyay ninkan odayga ah wuxuuba dadkii meesha joogay macal qaadigii maxkamadda ugu faanay in lacagtaas uu dib qabadsiiyay hadalkaas uu maxkamadda horteeda ka yiray oo dadkii ugu faanayna darteed waxay maxkamadaas ku xukuntay 30 beri oo xabsi ah iyo inuu bixiyo maalin walba. A Zimbabwean young man, a 27-year-old man, almost died fasting for a Lamborghini. Ballaayo saddexaad aan ku soo qabtay markii ku guureysana inaad maqlaysa ayaan rajeynayaa waa dhacdo markaas aad kaaga yaabi doonta kuna tusinaysa markaas diinteen islaamka inay tahay markaas diin nasteexa ah alxamdulillah ninkan oo ka soo jeeda qaaradan madow ee Afrika kana soo jeeda gaar ahaan wadanka la yiraahdo Zimbabwe waa sheekh waa pastor yani wuxuu hogaamiye u yahay mid kamid ah kiniisada ku yaala dalkaas balse mid uu sameeyay waa mid aad ula tacajabi doonto oo aad dhihi doonto alxamdulillah ala nicmatul islaam ninkan oo rabitaankiisa amaba aad u jeclaa inuu mar uun helo
gaari Lamborghini ama Lamboga gaaridan quruxda badan ee Lamborghini la yiraahdo ayuu aad u jeclaa in uu helo wuuna ogaa markaas gaarigan Lamborghini inuu yahay markaas gaari aad u qaali ah oo uusan qof walba iibsan karin inkastoo lacagtaas uusan helin isaga shaqo la'aan uu ahaa markaas wuxuu go'aansaday in uu somo markaas muddo 40 biri ah isagoo markaas rajaynayay markii uu muddadaas 40 biri ah dhameysto in guriga uu degan yahay hortiisa Allah waa Allahooda keena maahe oo u soo dhigi doono markaas gaari Lamborghini ah oo markaas Allah xaqiisa ugu yimid muddo 3 biri oo uu soo naabadarkii ama cuntadii oo dhan uu iska soomiyay isagoo markaas aad u rajaynayo in Allah uu sii doono markaas gaari Lamborghini ah ninkii xaaladiisa caafimaad ama noloshiisa waxay noqotay markaas mid halis gashay oo wuxuu ku dhawaaday markaas heer dhimasho runtiina marka qaar waxyaabo adduunkan ka dhaca markii aad eegto ama aad akhriso sida dhacdadan oo kale tusaale waxaad isla markiiba dareemaysaa in yacni anaga haddii aan dad muslimiin ama islaama in yacni aanu haysano diin naxariis badan alxamdulillah ayaan leenahay